على كل حال عن كسوق هنا ذي سيصدق في تنبضتي أنا ما إني موش اللوية لكن وعن وجهي وما ضمنت النور شيخ وشيخي معها عاقلك وعاقلك معها سلطانك معها سياسيين معها وحنا ورانا كراون عمل أهل النار وآخر السبن بانو كل جنا جمعها إن waxaan ka soo bilaabay xisbiyadii ka bilaabay cid intii aanu siyaasadda isku afdhaafnay ama isku jiidnay waxaan ku xigsiinayaa dhammaan kulmiye waxaan ku xigsiinayaa xisbigaygan wadani oo iyagu u badnaa markii aanu ciidayo faratoon maalin qolo fartaagay tiiga raacday cid walba og tahay dhammaan beesha Sweer awal meel kasta ay joogaan Sheekh Shariif dumar iyo rag wixii ereyga tagay mar kastaba inay ii tixgeliyaan bini'aadmihay maqaldama waa ilaahay inay xaaliga qaataan oo aan halkan ka raali gelinaya adduunkana sidiisaba iska amuuro badanoo waa imtixaan u marayo insaankuba ifka intuu ku nool yahay ummadana ibliis baa isa seeg la jecel oo markay isku idlaatana ku istareexa dhiilada bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaa ka hadlaya إبراهيم محمد جامع ولو جرنوجي خلقون كلام يدق له وكيل هذا الرجال يصير ذلك بدك يسوي غارنا إن ما أنت ورئيسي ما هذا اللي كان عم بيحنا يا حفلة واحد الكيو خير كبدنا أنت نروشي تشري عن صحافة جزيدة أيوه إلى هنا نكديان رجالي خير كمان تنكاد لينا in ilaahay sulansiiyo oo sida aan maanta u hadlayo iigu ekaato ilaa inta noloshayda ka hadhay hadalkaygu wuxuu daarayay kow marka hore raaligelin mar labaad dareenkayga iyo waxa keenay hadalkan iyo dardaaran amaan kula dardaarmayo siyaasiyiin amaan ku dardaarmayo bulshada guud ahaan خاصة أنت أذوق فوقن صحافة هذا تيك توك تاعي يا هذه صحافة عادية غطيرة إن ولقينا ما بحين أرترون أبولش إنه عمل كلاه سياسة ما أنت اللي تشوفها واحد نقطة دي قيسي إن هذا الشخصي كهذا شو هذا قف كأسوق الدنيا waxa markaaba ay saameyn ku yeelanaysaa cidu ka dhashay laba erayo tiri ayaa laga yaabaa in 100,000 qof cadawga ay ku samayso in badan waan ka fikri jiray barta mar inaan arinta ayada aan ka tanaasulo ana waxaan isaga dhashay nin kafta badan sidoo badigiisu way ugu yaqaanaan nin wuxuu diiday si cad u sheega oo waliba laga yaabaa inuu hadal culus isticmaalo walow aanan dhaqanka iyo diinta aan meel kaga dhicin siyaasadda ilaa iyo maalintii waddankan ay ka dhacay buuqaqii dowladda siyaad barre ilaa 82 ilaa imikada si dadban iyo si toos ah ugu jiray xisbiyada cudwaan ka bilaabay kulmiyana waan ahaa oo waliba xilal badan aan uga hayay labadoodaba North America qaaradeena deganaa maantana waxaan ahay xildhibaan qof markuu hadalka runta ka sheegana inta uu raali gelinay inta nacaysa nacaysan saa ka badan haddaan hadalka ku soo ururo midka shalay waxaan ka hadlay berbera iyo xilka yaa loo magacaabi doonaa maareeyaha dekedda berbera iyo yaa diidan waxa hadalka markaa igu kiciyay oo iga keentay dareenka xoogga ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada deegaanka berbera oo si adag uga hadlay walow bariyahan baan maqlay dad badan berbera ah oo ama beesha Ciise Muuse walaalahaya oo ixtiraamiga mudan
inay dad badan ay leeyihiin nimaan ciise muuse ahayn dekedana loo keeni maayo anna anoo ka duulaya somalilan wax wada leedahay si aan kilibkaan ka hadlay shalay waraysiga aan siiyey horyaal waxa runtii aad moodaa anigana inaan aada u talax tegey anigoo ka hadlayn xildhibaanku inuu qaldanaa inuu saxnaa imika dib ugu noqdo inaan doonayn horta marka hore waxaan raali gelinaya xildhibaanka caynaba oona weligay aanaan isarag guri oodna aanaan isugu iman laakiin ereygaa shalay aan magaranaysaa uun ka bixiyey dareenkaa culus waxaa markii dambena kabtankaygii ama hadalkaygii uu galay ama ila galay beesha ciise muuse anigu haddii la ilaa heeb ahaan dalin ree hargeysaanahay laakiin aniga magaalada la ii tiriya faamiligayga loo tiriya waa berbera waa awogey ku dhashay aabbahay ku dhashay lixan walaalina ku dhaladhay kolley dadkuna way noo yaqaana reer guun intaanu deganayn ama reer jacbulle berbera adeeraday aabbahay dhammaan way la qadhaadhaatay markaan anigu dib isu dhegaystay raggana waxaa u liitaa ninkii gafka tegay ka garaabi waaya maanta waxaan halkan raalli ka gelinayaa qof kasta oo siyaasad aan naqdiyey ama aan ka hadlay hadduu qaldan yahay haddii kaleba laakiinse dareenka qofkaas iga qaatay midaan maaragtay raalli ka ahayn waxaan ka soo bilaabaya xusbiyadii aan ka bilaabay cud intii aanu siyaasad isku afdhaafnay ama isku jiidhnay waxaan ku xigsiinayaa dhammaan kulmiye waxaan ku xigsiinayaa xusbigaygan waddani oo iyagu u badnaa markii aan u codeeyey faratoon maalin qura far taagay tiiga raacday cid walba way og tahay aniga intii ciddigayga lagu tayax tegayna ilaa iyo reerkayga la dumiyaa la gaadhay berigaa mana doonay inaan ku noqdo isagoo xusbigaygii ah laakiin dareenkaa amaan odhan karo inay yahan weynaayeen markaan ka codeeyeyna aada uga xumaadeen iyadoo rag kalebay la codeynayeen laakiin aniga ay isidhahdeen malaa ninkani waa nin dee ka mid ah haldoorkii beesha maalintaana waxaan asxaab badan ku lahaa aada ii soo dhaweeyey xusbigii kulmiye taageerayaashiisii oo intaanan waddani aanan gelin aan layga codsan inaan iska sharaxo aan ahaa xusbigii iigu dambeeyey cudo ka dambeeyey maanta waxaa dib ugu noqon maayo waxaan odhan karaa waxaan maanta ilaa iyo maalintii siyaasadaan soo galay aad inta badan moodaa inaan magaranaysa haddaan u cudahaa iyo haddaan ahaa waddaniba intii aan kulmiyaha mooyey inuu hadalkaygu inta badan ku dhici jiray kulmiye taageerayaashiisa ama hadalka baan ka badheedhee beeshaa suweer awal dhammaan beesha suweer awal meel kastay joogaan sheekhii shariif dumar iyo rag wixii ereyga tegay mar kastaba inay ii tixgelinayaan bini aadmi ahay maqaldaba waa ilaahay inay xaal iga qaataan oo aanan halkan ka raaligelinaya waxaanan u ballan qaadayaa inaan dib u dhici doonin taariikhdayda in ama shakhsi siyaasiya ama qof caadiya dee qof bini aadmiyo dee si kaleaan isugu nimid waa iska celin karaa laakiin inaanan ku fooganaanin naqdi siyaasadeed wuxuu doonaa noqdee kuwii xiga iyo kuwii aan xiginba kuwii la xusbiya iyo mid aan la xusbi ahaynba waxaanan maanta dareensanahay inuu raxmad ilaahay igu soo degtay in maanta anuu nin diinta aada u bartayna ahaa inaan inta badan ku mitido wixii wanaagsan ummadda faro inaan iyada laftirkeedana waxyaabaha social mediaha ugu horreeya facebook oo kale aan iska xidho waayo weligii baan iska xidhi jiray kumaan dhowr furay iyo tiktok iyo wixii la halmaalay sukaaya keenaya waxaan la yidhaha social interactionka aanan doonayn maanta nin weyn baan ahay nin yar mayhi daadii wanaagga ka talilayd baan ahay waxaan aada iyo aad ragga runtii inta badan carabkayga ugu badnaa aan kow ka bilaabaya ama beeshaa gaaraa raaligeliyey madaxweyne muuse biixi waa ninka ugu badnaa maadaama uu ahaa nin dee siyaasi ah in badanna dee kolley anigoo qura maaheed dee hoggaankiisa dee qofba darey ka qaadanayay inkastoo aan ma la socday
oo isaga la socodkiisina aan eeday oo dee aan ogahay siyaasaddii maanta inay qabiil ku beesgaraysan tahay oo wixii principalka la oranayay iyo dee ay wuxuuba noqday kanaa ku-xigee doono kanaa ku-xige ee magaranaysaay u hiili taasina waa maaragtay astaamihii hanuunnimada waanan ka hadlay xitaa sugaanteeda ballaaran somalilandna dee u malayn maa intaan hees ama maanse aan u tiriyey aan midnimada kaga hadlayo adduunyadaan kaga hadlayo ay ka mid tahay taan lahaa adduunkana sidiisaba iska amuuro badanoo waa imtixaanu marayo insaankuwa ifka intuu ku nool yahay ummaddana ibliis baa isa seeg la jecel oo markay isku idlaatana ku istareexa dhiilada aadmiga isluureemi ruux baa awood leh allah ayuu sidii roon saasay ku socotay beed kalena waxaa leh adduunkan la joogaa malaa waa aakhir samankii waxa amuura dhacaye inta badan caalwaaga marbay kuula ekaataa afka intaad ka xidhato indhuhu wax kala socdo intaas waa inta maanta igu soo dhacday anigu indhahaas baan ka daawanaya shaqadayduna maadaama ay xildhibaan siduu dhaartay dadka u dhaxeeya oo ka durka kana mid noqda xildhibaanada badan in baarlamaanka dadku badankiisu aan aqoon ayaan ku dadaalayaa dabciguu jiraa dareenka culusuu jiraa dadku way kala leeyihiin taas waa taa waana maanta iga gunaanad wixii la oran jiray naqdi siyaasadeed xisbigayga hadduu cood u baahan yahay sidii wanaagsan inaan ugu qabto dowladdu waxay ku hagaagsantahay inaan ku raaco laakiin sidii laygu yaqaanay inaan sameeyo dooni maayo wixii inun bini aadmi aan isku seegnay asxaab isku seegnay khaasatan asxaabtii aan soo wada korray meel kastay joogaan ee beeshaas beera warhaa aan soo wada korray ee cid walba aan isaga aqoon badnayn ee inun dhibsatay hadaladayda haddaan saxnaayo haddaan qaldanaaba anaa qaladka wada qaadanaya maanta oo bishu ay tahay 4 maalin salaasaa waxaan kaloo halkan raali gelinaya nin isna siyaasadda aan ka soo baxay dugsigiisii faysal cali xuseen faysal cali waraabe oo seedigeyna ah oo runtii dee intii dambe aanu xisbigiisana aan ka tegey markaan sharaxayana runtii isdiidooyin fara badanna dhex mareen faysalna waan raali gelinayaa isaga iyo dhammaan cayladiisa iyo cid kasta anoo akhridayda u turanaya anoo magacii reerkayga reer guunahaa u turanaya anoo walaaladaydii qiimaha badnaa iyo aabahaygii qiimaha badnaa على كل حال عن كسوق هنا ذي سياسة في تنبضتي أنا أقول إني موشن لويا لكن وعن أوجه ومضى ما أنت النور شيخ وشيخي معها عاقلك معها سلطانك معها سياسيين معها وحنا وراك راون عمل أهل النار وآخر السبن وبانو كل جنا جمعها weligay may dhicin aan miyiga kool emotional noqdo laakiin dareenkaygaan ogahay halkaasaan kusoo gaabinayaa ummadda islaamkana wixii waxay ka tirsaday cidday doonaha noqdaan waxaan leeyahay saamaxnaakum wixii wanaaga ee ama qof aan uga aqoon badan diiniyan iyo cilmi maadiba inaan wanaagaasu ka shaqeeyo nin tafaacal khayr badan baanay ummad badan gacanta ku haya mishaarkiisaan waxba ku cunay ummadda isu dhaafiya laakiin kulli carabkaygu kulala maanta intaasaan kusoo goynaya waan mahadnaqaya saxaafadda waan anigu u yeedhay runtii dee halaysa saamaxaan leeyahay cafis buuxa cid walba waxay ka tirsatay noloshooda rag iyo dumarba si kasta waan isku seegnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu